إخواني تنكر وجودا بيسوحا وكلمة صفات كلا جرب وقفك الداعية أو إلهي الدين تسجد بنا محل جربه كو قفك حال الربا إنه الدلقاء والله هذا صبر كيس إنه بطال الربا كلمة أديك الشيء يسوحا لغيابا إن مركي أفكا كسو بحضو أما كلمة دادك السكر أي أقاتان ووحا لغيابا إن وير الوصو قادو لكن هدي أضو داعي وإلهي درتيس وشيغيس هدي قفكس أديك أو جوابتي وحيارها بريان براها برشدة كسعودو هدي قفكس أو جواب هدا أديك عن هدي دعوة ميل مقاريس قف وحال الربا معان داني الصبر إنه الصبر دلقاد إلهي درتي سنة كا أحد الربا هدي لكن والدعوة دي أي كان نغطو حقوها في يذكر هذه أما هبل العالم ويهلقوده أما دعوة وحاوة هدي كان نغطو أدوج جعل مين لما قال ليس الدعوة داس إلهي سبحانه وتعالى وحليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شيء وحال الربا إلهي درتيس نيادة وحي إلهي كو أغيهي إلهي درتيس أود أدو دعوة ودد أو حال لغيابا إنا لكو لانت دعقبا بضان لكن دلقادة لغاربا صبر لغاربا وحاديك أودد وحاواي دعواي أنبياء هداء الله منه محايديه جرين واعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنبياء ولا صادبي أذين ولا ودبيا أذين وحواي وحكستاكو قدعاي لكن وحال الربا إن أذين دلقاد لغا هلال الربا لكن هدي قفك الصديقة جوابتي أما قفك وحواي براه برشد هدي لغو وحلو سو شيغو أذين براه برشد أتاغن تاي marka dacwadu waxay noqonaysaa fara ku taagay noqonay qofku waxa la rabaa ilaahay dartiis ha u wado hadii oo adiga aqaba aragtin sabr waa lagu caynaya waa lagu aflagaadeynaya waa lagu tumaya laakiin waxa la rabaa waxaan ilaahay dartiis inay ka ahaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisu wuxuu ku leeyahay نبي قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهو الله وتضع مع هذيك السنة مركها لازم حلقة بالحكمة والموعظة الحسنة إخواني مهم ويقفك الداعية أساليب الدعوة إنه أذيك سنة لكن اسكهذا وحي أو أفكار سوقته haddaad ina adiga aad ku dhawaaqdid dibkeeday leedahay marka bariyan waxaan aragnaa dad ducaad ah ama ha noqdaan masaajidaha ha iskaga soo radiyaan ama baraha bulshada ha noqdaan waxyaalahaas oo dhan waa loo jeedaa laakiin waxaa la rabaa qofka cilmiga qofka markuu cilmigiis uu badan yahay ma dhadhaco culimadii waxaa la soo bartay waxaan ka dhaxalnay weliga qof baraha bulshada wax ku soo maray looma jawaab shabaa laga dhaha haddii laakiin adiga aamusto laba jeer ka badan kuma soo jawaabsan oo iska aamusaya laakiin haddii adiga aad soo duubtid anigana inta aan ka duubo meesha waxaa waaye caamadiya ku lumays marka ikhwaani waxaa loo baahan yahay dacwada ilaahay dartiisa naga ahaato waxaan la faafinaa waa diin haddii ilaahay dartiisa adigaa u faafis ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkaaga ayuu galayaa laakiin hadday oo ay kaa noqoto adduunyo jecel iyo hebel sheekh waaye ha lagu dhaho dacwadaada meel ma gaaraysa ultimana waxaad ogaane saaxada waa ka dhexbehe imisaa qof oo baraha bulshada ama adduunkan korkiisa ay ku soo galeen hawli qof daaci ah oo orod ku socda haddaa aragtid
waxaa loo qabtaa dhowr sano waxaad arkaysaa asagoo ka dhex baxay waa wax adduunkan korkiis lagu arki waayo marka dacwada ha ahaato ilaahay dartiis inaa wax u fidis hataa hal aayad allah ka dhigo balliguu canii walow aaya wuli nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogeydeen qisadii saxaabiga magaciisa leeyi jiray Muscab bin Umayr markii nabigeen u diray Madiina meeqa sano jiray 18 sano dacwadiis guri kasta oo Madiina ah dacwad ayuu gaarsiiyey adina saas laga rabaa mujtamaca waxa uu sheegaysi waa isku dhex jiraan qaara waxa aan fahmaynin qaara si fiican waa u fahmay ina isku wadidaa la rabaa مثلا anagoo masaajidka aan ku jirno hadii qofku u caayo ama qof intuu gacanta taagto wax ku dhaho maxaa sameeyna مثلا daaciyad ay waa dhageysane fadhiisaa dhahe laakiin hadaa dhaada ka waran adigu waa idab daran tahay masaajidka ka bax hadaa dhaada ka waran dacwadaada meel ma gaarays waa doobay nabiga calayhi salaatu wasalaam nina u imaad muxuu yiri yaa rasuul allah fasaxu inaan zanaysto saxaabadii way la yaabeen nabiga ma dhin calayhi salaatu wasalaam masaajidka laga saaro ninkan fadhiisaa dhahay markaas waxa la dhahay haye hooy ma qabtaa hooyada ma rabta in laga zanaysto maya walaasha maya eedada maya xaaskaaga maya wixii oo dhan maya markuu leeyahay alla gabadh adiga zina la rabtid qof ay la dhalatay nabiga waa u duceeyay ninkii iridu ka baxay marka qaabka sarraba qofka inuu wax u daaweyn karo adiga waxa waa inaa wax daaweyn kartaa la rabaa nin kala imaado maalmaha masaajidka nabiga geeskiis meeluu ku kaaday markuu kaadshay saxaabadii way canaanteen nabiga wuxuu yiri suul yaa la canaanane markaas la meesha masaajid waay marka adiga aad timaadid meelahaas lagu kaadiya biya nabiga biyo amray fiiri macnaha dacwadaas oo dhan waxa way qaabka oo wax loo gudbinayo lagu barayo ina baratida raba laakiin hadii adiga dhahdo qof kasta kan caamada ah iyo kan oo duqa ah dadka dhan isku taagid ka waran oo saaxatul qitaal ay noqoto meel baray bulshada lama rabo dacwadu waxay u baahan tahay bil hikma wal maw'idati al hasana qofka hadii hataa meel luqa waxa uu sheegtay waxa laga yaabaa inuu dacwadaada u qaato laakiin hadii oo dadka hortooda aan ku ceebays inuu wax ka qaato iska dhaafee waxa laga yaabaa dagaal inuu kuula imaado qofka marka tartiiba wax looga sheegaa nabigeen wuxuu dhigi jiray ma baaru qowmin asoo uu dhigi jiray ma baaru qowmin waad ogeydeen waxaan ku soo gabagabeynayaa sidii nabi Muuse calayhi salaam iyo Fircoon nabi Muuse iyo nabi Haaruun calayhi salaam markii ilaahay u diray Fircoon oo ogtiin oo uu yiri ana rabbukum al-a'la Fircoon laba jeer ayuu ilaahnimo sheegtay quraanka fi suurati al-qasas wuxuu yiri ma alimtu lakum min ilaahin ghayri meel kale wuxuu yiri ana rabbukum al-a'la markii nabi Muuse loo diray ناموس إلهي محكوري في سورة طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقل الله فرعون لي هذا الجلع سنة إلهي أوياي فرعون سهنوني فقولا له قولا لينا هذا الجلع سنة لعله يتذكر أو يخشى فيري فرعون أو قال أساس على الله كورا وفرك ورالك أما عامسك ama waxba aan fahansanayn hadii ka waran sidii adiga aad ula hadashanin oo macnaha oo wax yaqaan sideeda waxa way qofka adiga aad la murmays ama qofka diin aad kala doodaysid waa la miisaama kood inta adiga aan hadlin imaam Shaafi'i rahimahullah wuxuu dhihi jiray weligay lama doodin wurinin oo jaahil ah hadii aan la doodo uu iga badinaa weligay in caalimna lama doodin wuri hadii aan la doodo waan ka badinaa saas la rabo إخواني دعوة مركب وحي أباهن تاهي الصبر أباهن تاهي دعوة وحي أباهن تاهي الدلقات دعوة وحي أباهن تاهي إن أديك استجسد والترتيب داتك وحي أوشيكتد وداتك أديك حسوسد آل الربا وحيالا ما أنت داتك أباهيين آخر ضوء داتك آخر ضوء لو شيكيا أدوك إن وحبا عن أهين لكن هدي ما أنت أدوني لو شيكيا نبكي ذي لهذا حين مركب إخواني وما سنتين
حلقة تنقص وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.